luqadda carabiga waa luqadda uu allah u doortay waxyigiisa inay ku soo degto. luqadda carabiga waa luqad qani ah waxayna ka mid tahay luqadaha ugu qadiimsan caalamka. luqadda carabiga waxaa ku hadla in ku dhow 500,000,000 oo qof. luqadda carabiga waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad marka loo eego luqadaha loogu hadalhaynta badan yahay caalamka. afka carabiga waxay luqad koowaad u tahay 27 waddan. luqadda carabiga waa luqadda afraad loogu isticmaalka badan yahay internetka. afka carabiga waxa ay muslimiinta u tahay muhiim maadaama ay tahay luqadda qur-aanka kariimka oo ahna luqadda loogu tukado ayna laga maarmaan u tahay gudashada cibaadada badan ee diinteena suuban ee islaamka. sanad walba 18 Diseembar waxaa caalamka loogu xusaa maalinta caalamiga ah ee afka carabiga. afka carabiga waxaa loogu yeeraa luqadda aabbaha sababtoo ah waa luqadda keliya ee ka kooban xarafka daad. xarafka daad waa mid ka mid ah xarfaha alifbeetada carabiga. waa xarafka 15aad ee alifbeetada carabiga. dadka aan carabiga ku hadlin qaarkood ma awoodaan inay u helaan cod bedel ah oo loogu talagalay afafkooda. luqadda carabiga waxa ay ka mid tahay 6 luqadood ee rasmiga ah ee qaramada midoobay ay aqoonsan tahay. daawadaha sharafta leh mawduucan luqadaha taxane ayuu noo ahaan doonaa. si aysan ku dhaafin muuqaalada ceenkan ah nagu soo bir ee youtube-keena xikmadso subscribe dhaho hana ilaabin tiktok inaad follow soo dhahdid. mahadsanid.